Jacaylkii berisamaadku xaguu marayay talow? Aniga hay weydiin adigu ka jawaab. Haddaadan ila socon, dib ugu noqo oo kow ka soo bilow. Hadda waxaynu maraynaa 41. Heestan magaceeda waxaa la yidhaahdaa muusig iyo kaban. Waxay leedahay igu maran jacayl maran, wuxuu maray naftoo maran, sidii marin ayuu maray marinnada jidhkaygiyo halka dhiiggu uu maro. Micidiisa dheer buu xididada ku mudayo, hawadaa maraan iyo dadku ii malay caaq. Igu mudan jacayl mudan, wuxuu muday qudhoo mudan, sidii mudac ayuu muday meel aan la mudin iyo halka dhiigga mudan maro. Mana ihi sidii hore oo muusig iyo kaban baa ila muuqdoon rafiiq mooday waayahan, balse maalin uun baan mawjadiisa daran iyo moolka aan ka baxayaa mawlahayga idankii. Heesta 42 aduunbaa i casharin kara. Caashaq waa i dhibayoo isagaa cudoonayay oontiyo cuntada iyo ii diiday ceeshkoo iga yeelay caynka. Isagaa catowgiyo igu wacan cabaadkoo isagaa ciddaydiyo tolkii iga dhex ceysho cidladaa yidhi joog. Cindigaygan kuu diran xasuus baa cadaabto fikir baa cusleeyay, dadku caaq sabsaab iyo doqon iguma caayeen. Laymana canaantin waxsan caadi noqonoo cudurka ka koraya, cishadaan ku helo oo aduunbay casharin kara. Jacayl baa cadkaygiyo ku ciyaaray ruuxda waa colkayga keliye, caato maan ahaadeen waa horaan cayiri lah, dadkaa iga cabsoon lah waana la iisayn lah. Heesta 43 ka ahaa nuura. Koonkii adduunkaba inta gabadh ku nool iyo hablaha kufkaaga ay kacay dhammaantood, adoo keliya uunbaan rajo kaa sugaya. Quruxdana adaa kow galay oo kasbaday oo koobkii asluubtana waa la igu soo kaadhibay adoon kicin ma guddoomi karaysaa. Waan kugu kalsoonoo kurbadiyo xanuunka iga keenay erayadan ee karaamo iyo sharaf baan ku hayaa badan. Kelmadaan la yaabiyo kaftan iyo sarbeeb baad ku kaabtaa cishqiga oo kartidiyo xishoodkana allah kugu deeqo korkaaga ay ahaadeen. Kashaydana adaa baray kalgacaylka aadmigu koolkooliyaanoo kibirkiiyo sitaagiyo wax kastoo turxaanana ka salim ayaa tahay. Haddaan ka ahaa nuuray layna kala kaxaynoo kafan aan midkeen xidhan, waa kifaaxaynaayo kansho waysu helanne. Heesta 44 magaceeda waxaa la yidhahdaa geenyo. Waxay leedahay tii aan gaatay in gabdho kala baxay, gayaankay dhammaan uga soo go'ay, gallad iyo jacayl macaniga guddoon. Gobollada dalkayga iyo guud ahaan geygayga wacan gaashaa timaha geeyay ku nool waxaa tahay ka gaar. Geeraarka iyo gabayadan wadaa waa geesi iyo halii caashiq galay, gidduu yeeli jiray ee iga guddoon. Gaabsi iyo ma ihi dhaqankii gudnimo, in ku soo godee guur iyo aroos laysla garanayaan ugu celinayaa. Bogga kuu gugulow adigaa gob yahay helayoo gunniyo guunyo kuma xidhnee kaalay oo ku gama. Heesta 45 qaybteena 9aad noogu dambeysa. Magaceeda waxaa la yidhahdaa nac. Erayga nac ayay ka samaysan tahay gebigeeda. Marka waa heesta yaroo iska kooban oo aan iskaga madadaashay xilliyada ka mid ah. Waxay leedahay ruuxii nac quutee adoo jecel ku nacay baa in la naco mutaystee maxaad igu nacaysaa. Kuma nicin waqay oo nacba kuma quudhee waa adigan i nacaye maxaad igu nacaysaa. Inaan naco hurdiyo jiif adaa sababay oo nacay wax kastoon la nicine maxaad igu nacaysaa. Nici waaye caashaqan i nacsiyey noloshoo daraadda isnacaye maxaad igu nacaysaa. Anigoon ku nicinoo kula nacay gaf iyo xume oontiina kuu nacay maxaad igu nacaysaa. Assalaamu calaykum.